Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dear students. And this is Teacher Adam, and this is in a new lesson. So, dear students, today inshallah we're going to talk about the weather. In our previous lesson we talked about the weather. So tonight is going to be a conversation where two people, A and B, they're going to converse, or they're going to talk about the weather and how the weather is. النهارده شرفت بدنا معالي آدن هي 10 كلا عصب marka 10 waxaan ku dhigan doonaa the weather oo hawada ama jawiga ah marka weather baa jirtay climate cimilada weeye climate xagga aan ku qoray climate waa cimilada laakiin weather waxa weeye jawiga iyo hawada marka farqiga u dhaxeeyna waxa weeye weather waa maalin waxa dhaca maanta roob baa daaya cadceed baa jirta baraf baa jira dhaxan baa jirta waa maalin waxa u dhaca laakiin climate waxa weeye waa hawada ama jawiga meel lagu yaqaano hadoo kale waxaad oranaysaa berbero way kula shaad kornaysaa waxaad oranaysaa London way qabowdahay waxaad oranaysaa Allahu musta'an dhulka carabaha way qabowyihiin marka ama way kulul yihiin waxaad ka hadlaysaa climate ka hadlaysaa laakiin maalin walba waxa dhaca waxa weeye weather baa la yiraahdaa weather marka waa jawiga ama hawada jawiga iska dheh Allahu musta'an climate-na uu ka gudo balaaran yahay waa wax maxaan ku raadaay meel lagu yaqaano maxaan ku raadaay intaas 10 sano la record gareeyay maxaan ku raadaay la diiwaan galiyay weeye in ay kuloshahay in qowdahay iyo wixii la mid ah marka aan bilowno 10ka the weather is terrible here the weather is terrible here the weather is terrible here the weather ama jawiga is terrible here halkan jawiga waxa weeye aad buu xun yahay marka terrible waxa la isticmaalaa waxa aad u xun qofka uu aad u dhibsanayo ayaa terrible la isticmaalaa hadda kale waxa it's a terrible idea waa fikrad aad u xun weeye waa fikrad aan wanaagsaneyn xun weeye it's a terrible idea and the weather is terrible here marka waxa laga yaabaa roob badan uu daayo dadkaan ay bixi kareen ama dhaxan badan ay jirto ama baraf badan uu daayo aanu qofka fardhaqaajin karin aanu guriga ka soo bixi karin gawaadhida kale istaagayaan marka wax qofka uu aad u dhibsanayo weeyaan marka waa jawi aad u xun the weather is terrible here halkani jawiga aad buu xun yahay marka cinwaanka macnihiisa sida weeye the weather is terrible here marka labada qof ayaa waxaan ku dhahay sheekaysanaysa A iyo B A wuxuu yiri marka Jim iyo Jack baa la kala yiraahdaa marka hadda waxa hadlaya Jim baa hadlaya wuxuu yiri hi Jack this is Jim I'm calling from Miami was state kamida Mareykanka content states buu leeyahay stateyadiisa mid kamida waxa la yiraahdaa Miami hi Jack this is Jim I'm calling from Miami hi Jack hi qofka waa hadal adum waa iska warano farsamo ah maxaan ku raadaay hadalka marka waxa loo qaybiyo formal informal formalku waxa weeye waa hadal xafiis weeye marka iyo hadal suuq baa jira marka kan waa iska hadal suuq marka dadka aad isku yaqaanaya isticmaala suuq kaliya maaha qofka aad isku taqaanaan ama qaraabadiin ama adeerka ama abtiga ama qoon fiican ama saaxiibta tihiin ayaa la soo isticmaala laakiin waa hadal iska meel walba lagu isticmaala xafiisyada lagu isticmaala marka waa hadal iska caama hi Jack iska waran Jack hi Jack this is Jim kani waa Jim I'm calling from Miami waxaan ka soo wacayaa Miami waan ka soo wacayaa from Miami iga soo garaysa marka what are you doing in Miami maxaad ka qabanaysaa marka hadalkan waa hadal tacajub qofku yaaban yahay malaha meel u dhow kooga dadana Miami da wala yaabay what are you doing in Miami maxaad ka qabanaysaa Miami from Miami what are you doing in Miami I'm on vacation waxaan ku jira fasax vacation waxa la yiraahdaa fasax qofka uu meel u tagaayo safar uu safrayo weeye oo maxaa ku meel kale u tagaayo I'm on vacation waxaan ku jira fasax baan ku jira how's the weather in Miami waan ka soo hadlay apostrophe-ga calaamada apostrophe la yiraahdaa waxa laga soo gaabiyay how's the weather in Miami jawiga Miami ka waran is it sunny ما عاد baa jirta
marka cadceeda dadka aad bay u jeceliin dadka qabowga ku nool oo kale maalin cadceeda inay helaan aad bay u jeceliin marka samarka aad bay u jeceliin dadka way dhaxanta lama jecla badana iyo winterka no it isn't may and cadceed maaha it's raining it is raining roob baa daaya is it hot ma kuleel ba no it isn't may ma aha it's cold waa qabow cold waa qabow baraf wey it's cold are you having a good time ma waqti fiican ayaad qaadanaysaa good time waxa weeye marka waa waqti qofka uu qaadanayo uu jecel yahay maxaan ku raadaye hawada jawiga uu degan yahay maskaxdiisa ay degan tahay and they have some peace of mind like just relaxing and calming and enjoying themselves good time marka qofka markuu waqti fiican qaadanayo maxaan ku raadaye aanay ka qasnayn ayaa good time leedahay you can say I'm having a good time oh Abdurrahman how are you doing oh it's so nice I'm so relaxed I'm having a good time are you having a good time ma waqti fiican ayaad qaadanaysaa no I'm not no maya I'm not ma qaadanayo I'm having a terrible time marka having a terrible time iyo having a good time way kala soo horjeedaan marka waxay isku yihiin laba shay oo kala soo horjeeda tan waxa weeye qofka maasha Allah waqti fiican buu qaadanaya terrible time waqti xun weeye aanu qofka jeclayn maxaan ku waxba aanu qaban karin qofka I'm having a terrible time waxaan qaadanayaa ama terrible time waqtigayga waa waqti aad u xun waayo roob baa daaya dhaxan baa jirta qabow baa jira waqti fiican maaha qofka waxba ma qabsan karo baraf ayuu maxaan ku raadaye iyo qabow fara badan buu ku jiraa I'm having a terrible time the weather is terrible here jawiga halkan waa aad ayuu xun yahay jawiga I'm sorry to hear that waxaa la isticmaalaa qofka markuu qofka saaxiibkaaga ama qofka aad taqaanaan markuu sheeko kaaga sheekeeyo sheekadaasoo maxaan ku radaa aad u damqanayso sheeko murugo leh xogaha wax qofka maxaan ku radaa waxa ku dhacay qofka wax aad maxaan ku radaa aad ka damqanayso ama aad u damqanayso aad isleedahay Allah qofka waad u damqanaysaa I'm sorry to hear that waan ka xumaa inaan taa maqlo marka I'm sorry to hear that isticmaal markuu saaxiibkaa ama qof aad istaqaanaan uu ku waramo sheeka iyo waxyaabo murugo leh oo isaga ku dhacdo maxaan ku radaa aad u murugo leh oo isaga ku dhacday markuu kaaga sheekeeyo and you can say I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that I am sorry to hear that I'm sorry to hear that the weather is terrible here hi Jack this is Jim I'm calling from Miami what are you doing in Miami I'm on vacation how's the weather in Miami is it sunny no it isn't it's raining is it hot no it isn't it's cold are you having a good time no I'm not I'm having a terrible time the weather is terrible here I'm sorry to hear that hi Jack this is Jim I'm calling from Miami what are you doing in Miami I am on vacation how's the weather in Miami is it sunny no it isn't it's raining is it hot no it isn't it's cold are you having a good time no I'm not I'm having a terrible time the weather is terrible here I'm sorry to hear that marka sheekadan ay isku mid yihiin marka sheekadan iyada sawir ayaan Facebook page ku soo diraya Facebook page waa Learn English with Aden xagaan ku qoray magaca xagaa ku qoran tahay marka waxaan idinka codsanayaa maxaan ku raadaye and Facebook page ka taga tan exercise ka xagaas ku jira exercise kan ka soo shaqeeyada tana let me see now your workings or you can send it to me on my WhatsApp you have my number in case you don't have my number go to my Facebook page my number is there so write my number there and add me on WhatsApp and say hi teacher I'm one of your students and this is a book actually this is a book so if you reach out to me on my WhatsApp using my number on my Facebook page this is my Facebook page I'm going to send you the book inshallah I'm going to send you the book so instead of me sending a picture I'll just give you the page number where you're going to do where you're going to do the exercise on your book so it's for example this is page
It's page 41. This is 40 and this is 41. So dear students, I'm going to end the lesson there. Until we meet, next time, I leave you with Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bye bye.